بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta way taariikhdu tahay bisha 13 2023 afartii subaxnimo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ku sugan aaga bari ee fariisimaha Gooja Cadde waxa ku soo weeraray ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya iyagoo ka soo weeraray laba jiho buundada booda iyo dhaka laascaanood ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii caadada u ahayd way ka guuleysteen cadawga waxaana ka qabsadeen saanad dagaal gaadiid iyo maxaabiis badan maxaabiistaas oo ka badan 20 maxbuus laba gaadiid oo dagaalka ah midna yahay dhashiikay midna jiib yahay waxay qabsadeen 15 qori oo nooca boobaha culus ah oo loo yaqaano BKM waxay kala qabsadeen oo ay furteen in ka badan oo qoryaha yaryar ah iyo hubka yaryar waxaan halka uga hambalyeynaya dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u rajeynaya mar walba in cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka guuleystaan waxaan kaloo farayaa oo fariin u dirayaa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo caadaystay inuu mar walba xadka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gafo oo soo gardareysto isagoo imika caadaystay inuu huwan iyo ciidanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo iswata ay soo weeraraan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan fariinta u diraynaa waxa weeyaan in gacan adag lagu qaban doono oo Soomaaliland ka guuleysan doonto insha Allah caalamka ama bulshada caalamka waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa inay rabaan maamul goboleedka Puntland iyo huwanta iswata inay jabiyaan xabad joojintii iyo wada hadalkii ay bulshada caalamku ay wadeen xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkeedu waxa weeyaan oo ku dadaalaysaa mar walba xabad joojintii inay wado wada hadalkiina diyaar u tahay mar walba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.